madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa salaada janaasada ku tukaday Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya marxuum Cali Maxamed Maxamed oo askaran lagu sameeyay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. diyaaradii sideemeedka madaxweyne Cali Maxamed Maxamed ayaa markii ay ka soo cagdhigatay gagida diyaaradaha aadan cadde ee magaalada madaxda Soomaaliya ee Muqdisho waxaa naxashka marxuumka la hooyay calanka jamhuuriyadda Soomaaliya. cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa ka soo dajiyay marxuumka ayagoo qaadayo saan murugaysan. aaska qaran ee loo sameeyay marxuum Cali Maxamed Maxamed madaxweynihii hore ee dalka ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, gudoomiyaha golaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble, madaxweynaha Hirshabelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe, gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Maxamed Cumar Finish, madaxweynayaasha hore ee dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud, mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed, mudanayaal ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, xubno ka mid ah golaha wasiirada, taliyaasha ciidamada qalabka sida duubabka dhaqanka culumada Soomaaliyeed ee helada marxuumka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. aaska kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u duceeyay ummadda Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday mudane Cali Maxamed Maxamed.